habeen madow Skyler waxay daaqada ka baxday si ay ula soo baashaasho labadeeda saaxiib. Waxay u maleysay inay tahay habeen madadaalo, laakiin labadeedii saaxiib waxay gaariga ku sideen mindiyo iyo masharaaf ay ku aasaan. Ma isweydiisay haddii saaxiibka aad sirta u sheegto uu yahay kan qabrigaaga qodaya? Sanadku waa 2012, goobtu waa West Virginia. Gabadh 16 jir ah ayaa daaqada qolkeeda si qarsoodi ah uga baxday si ay ula kulanto labadeeda saaxiib ee ugu dhow. Waxay u maleysay inay tahay habeen ciyaar iyo kaftan ah, laakiin dhiiga ayaa ku qaboobaya markaad ogaato in saaxiibadeeda ay gaariga ku wataan hubka ay ku dili lahaayeen. Tani waa sheekadii Skylarness oo ahayd musiibadii khiyaanada ugu xumeed ee qarnigan. Skyler, Sheila iyo Rich waxay ahaayeen kuwa aan kala harin. Waxay isku ahaayeen sidii walaalo oo kale, laakiin xiriirkoodii waxaa ka dhex dhashay masayr iyo nacayb qarsoon. Habeen saq dhexe ah, Sheila iyo Rachel waxay u yimaadeen guriga Skyler. Skyler waxa ay ka soo bootay daaqada si aydan waalidkeedii u maqlin. Waxayna raacday gaarigooda. Waxay aadeen meel hawd ah oo cidlo ah si ay u cabaan sigaar. Markii Skyler ay dhabarka u jeedisay si ay dab shid u soo qaado, ayaa Sheila waxay tiri 1, 2, 3. 6 bilood ayay Skyler maqneed. Sheila iyo Rachel waxay u dhaqmayeen sidii saaxiibo murugaysan. Waxay gacan ka geysteen raadinta saaxiibtoodii, waxayna habeen kasta u soo qori jireen fariimo ay ku leeyihiin waan ku weysanahay Skyler. Laakiin baaritaan dheer iyo booliska ayaa ka keenay Rachel ay dhabta ka hadasho. Markii ay jabsatay ooyin waxay tiri waan dilnay, meedkeeduna wuxuu yaalaa hawdka. Boolisku waxay heleen meedka Skyler oo lagu daboolay laamo iyo dhagaxaan, maadaama dhulka uu adkaa oo ay qodi waayeen qabriga. Maxkamadda horteeda naxdin ugu weyn waxay ahayd markii la weydiiyey sababtaad u disheen. Jawaabtu waxay ruxday qof walba oo bini'aadam ah. Ma jirin argoosi, ma jirin wiil ay isku haysteen. Kaliya waxay yiraahdeen ma aanan rabin inay nala saaxiib noqoto. Sheila waxay hadda ku jirtaa xabsi daa'im ah, halka Rachel lagu xukumay 30 sano. Kiiskani wuxuu ina barayaa in marnaba aadan aqoon karin waxa ku dhex jiro qofka ku dhool cadeynayo. Caawa marka aad saaxiibkaaga u dirto fariin, isweydii ma tahay qofka aad nolosha ku aamini karto.